aqoontii xirfadii aan lahaa ma lahayn waxaa lagaaga saaraa qabiilka aad tahay jareedii baa lagaaga saaraa isma lahayn marnaba. waa Muxudiin Siidow Xaaji Cabdi oo in muddaha ku soo shaqaynayay xirfadda muuqaal duubista. waxa uuna sheegay in shaqadiisii oo uu bartay in muddo aan ka soo shaqaynayay jeclaana iminka inuu ka shaqeeyo ay ka hor istaagtay qolada isaga uu ka dhashay oo sida xaqiiqada uusan isagu dooran. waxa uu sheegay in qabiilku uu ka soo jeeda awgiis uu ku waayay shaqo uu heli lahaa. Siidow guriga ayaan ugu galaynaa, bal adiguna daawade. Muxudiin Siidow sanadka markuu ahaa 1986 ayuu ka mid noqday shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dalka xilligaas oo la yegleelay telefishinka qaranka Soomaaliyeed. waxa uuna ka mid ahaa shaqaalihii ugu horeeyay ee ka howlgala telefishinka. waxa uu shaqaynayay ilaa laga gaaro sanadka markuu ahaa 1991 xilliga oo ay dalka ka baxday xukuumaddii talada haysay. magacaygu saxwaaliyada Muxudiin Siidow Xaaji Cabdi, cameraman TV qaranka dowladda Siyaad Baraan jira. shaqaalii ugu horeeyay TV qaranka qaatay aan kamid ahaa. waxaan shaqada bilaabay codkayga meeray waxaan shaqada bilaabay sanadkii 1986. waxaan kamid ahaa shaqaalii ugu horeeyay TV qaranka Soomaaliya qaataan. waxa uu ahaa muuqaal duuba ka tirsan telefishinka qaranka. nasiib darro burburkii baa ku dhacay. sanado badan oo uu qaxooti ku ahaa mid kamid ah wadamada jaarka dib ayuu u soo laabtay Siidow. waxa uuna go'aansaday inuu dib ugu laabto wasaaraddii uu ka tirsanaa xilliga markuu xilli ahaa. laakiin maxaa dhacay? wasaaradda faafinta hanuuninta dalxiiska waxaan diyaar u ahaa inaan u shaqeeyo, laakiin badtaatan waxaa la yidhi ma soo geli kartid. oo sababtuna maxay tahay? sababta qabiilka ma hubaysno, laan gaala ka dhaltay 4.5 tahay waxyaabo lamid ah. waxay ila tahay dadka ku fogan xilligan dhageysiga ama daawashada warbixintan inay fahmeen sababta Siidow looga hor istaagay wasaaraddii uu bari qaybta ka ahaa. aan kuugu celiyay waa midabta koor. sababtoo ma hubaysnid, ma soo dagaalamin, beeshaada ma hubaysno, waan gaabaa tahay waxyaabo noocaas. Amiin Yuusuf Qasaare waa rugcadaas saxaafadeed waxa ayna waaye badan isla soo shaqeeyeen muuqaal duubihii midabta koorka lagu sameeyay. magacaygu waa Amiin Yuusuf Qasaaro, waxaa ka mid ah shaqaalihii hore ee wasaaradda warfaafinta, gaar ahaan waxaan u shaqeynayay telefishinka qaranka. waxaan ku soo biiray sanadkii 1989 bishii Juun. telefishinka wuxuu ahaa hay'ad weyn oo la asaasay sanadkii 1983. waxaa ka shaqeyn jirtay shaqaale fara badan, wuxuuna ku yaalay xaruntiisa isgoyska Tawfiiq. maalinkii shaqaale aan soo noqday waxaan ugu imid Muxudiin Siidow oo cameraman buuxa ah. wuxuu ahaa shaqaalaha weliba dadka way kala jireenoo isaga wuxuu ahaa shaqaalaha joogtada ah. dadna baartayna ku shaqeynayeen, dadna waxay shaqaalaha joogtada ah. wuxuu ahaa shaqaalaha joogtada ah ee wasaaradda warfaafinta. baaq uu madaxda dalka ugu sarreysa u diray xog baahiyihii la hayb soocay ee aan xogtiisa idiin soo baahinay ayaa u dambaysa warbixintan. waxaan wasaaradda warfaafinta iyo madaxda dowladda ugu sarreysa madaxweyne Farmaajo iyo Khayre ka codsanaya maadaama ahaa nin muddo badan waddanka kusoo shaqeynaya, dadkii horena ahaa cameraman horena ahaa, aan diyaar u ah inaan ka shaqeeyo wasaaradda warfaafinta. waxaan ka codsanayaa marka codsiga inay tixgeliyaan. Maxamed Cismaan Daahiye, Somali Cable, magaalada caasimadda Muqdisho.